madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa kulan aan caadi ahayn isugu yeedhay xubnaha golaha wasiirada ee xukuumaddiisa kulankaasi oo lagaga arrinsanaya isla markaasina lagaga wada hadlayay xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanada bariga ee Soomaaliland taasoo faragelin ku hayso dawladda Soomaaliya kala fadhigaasi aan caadiga ahayn oo muddo socday markii uu dhamaaday waxa warfadhiyaanka la hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland waxaan warbaahinta u akhriyay go'aamo kala duwan oo xukuumaddu ka soo saartay faragelinta dawladda Soomaaliya ay ku hayso dhulka iyo qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. dhammaan saxaafadda dawladda iyo madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan doonayaa halkan inaan maanta idinkula wadaago kalfadhi aan caadi ahayn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isugu yeedhay golaha wasiirada go'aamadii ka soo baxay inaan halkan idinka akhriyo. golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo isugu yimid shir aan caadi ahayn waxa ay si kulul u dhaleecaynayaan falagelinta ay dawladda Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay ka wado deegaano dhul ahaan iyo taariikh ahaanba ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yahay bariga gobolka Sool. shirkan oo uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro dood iyo falanqayn kadib waxa uu cadaynayaa kow caalamiga ah iyo rabitaanka dadkeeda xuduudaheeda iyo rabitaanka dadkeedu xuduudaheedu waa kuwii ay dunidu aqoonsanayd 1960kii ee ay gobonimada kaga qaadatay boqortooyadii Ingiriiska. xuduudaas oo la aqoonsan yahay kulana midowday dawladdii Soomaaliya ee xorriyadda ka qaadatay Talyaaniga isla taariikhdaas ka hor intii aanay mar kale dib ula soo noqonin 30 sano kadib burbur ku yimid iyo fashilaad ku dhamaatay midnimadii dawladdii ay la midowday. sharci darrada qodobka labaad waxa weeye sharci darrada falalka Muqdisho ka wado dhul ka mid ah dhulka Soomaaliland. xukuumadda Muqdisho iyada oo si cad ugu fashilantay gudashada waajibaadka ka saaran dib u dhiska iyo nabadeynta gudaheeda waxa ay hadda raadinaysaa gabood siyaasadeed ay xilligan doorashooyinkeeda ugu soo dhuumato oo ay ku mashquuliso indhaha dadkeeda iyo beesha caalamka oo dadaalo nafhur ah gelisay dib u dhiska Soomaaliya waxa ayna dhaqaalihii iyo hubkii lagu siiyay dhismaha dawladnimadeeda u adeegsanaysaa inay colaad ka horiso deegaamo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland. qodobka saddexaad israacsanaanta dhuleed ee jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool Sanaag Togdheer ee ay Soomaaliya ku hadaaqaysaa waxa ay aan qaybsami karin ka yihiin dhul qarameedka jamhuuriyadda Soomaaliland. dadka deganina waxa ay sees iyo hormuudba u ahaayeen bulshadii sida xorta ah go'aanka qarannimada u gaadhay kadibna si dimuqraadi ah uga mid ahayd aftidii madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo dhismaha Soomaaliland. isku dayga Soomaaliya ay doonayso in ay u qaybiso qabaa'il xuduudeed siyaasadeed waa bilowga colaad qabiil oo ay ka dhex abuurayso bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland. qodobka afraad nabadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo tiirarka ay ku dhisan tahay ay ka mid yihiin xasiloonida gudaheeda iyo nabad kula noolaanshaha dariskeeda waxa ka go'an in dadkeeda deegaanadeeda Soolbari ay la gasho wada hadal lagu raadinayo xal nabadeed oo lagu soo afjaro colaadaha iyo tabashada ka jirta magaalada Laascaanood iyo guud ahaan bariga Sool. sidaa oo kale waxa ay horumar fiican ka gaadhay nabadda dadka walaalaha ah ee gobolka Sanaag taas oo ay dhammaan dhinacyadu aqbaleen in ay isugu yimaadaan gogashii nabadeed ee uu dhawaan dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan uga mahad celinaynaa ismada dhaqanka ee soo jireenka ah ee gobolka Sanaag nolosha nabadda iyo gogashaana ku qaabilay niyad samida. qodobka shanaad ee u dambeeyana waxa weeye baaqa daneeyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku wargelinaysaa golaha ammaanka qaramada midoobay ururka midowga Afrika IGAD iyo dhammaan daneeyayaasha gobolka Geeska Afrika
iyo guud ahaan beesha caalamka in cunaqabatayntii hubka ee ay Soomaaliya ka qaadeen sababtay inay hesho hub ay u adeegsato dagaalo siyaasadaysan oo lagu wiiqayo nabadda iyo isla markaana ay jiraan khataro hubkani ugu gacan geli karo kooxaha xadjirka ah. ugu dambeyntii difaaca qarannimada Soomaaliland inkasta oo Soomaaliland kaalin muuqata ka qaadato nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo gacanka cadmeed sidoo kale ay dadaal adag ugu jirto kobcinta dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaalaha haddana waxa ay si buuxda u cadaynaysaa inaanay ka gaabin doonin waajibaadkeeda dastuuriga ah ee ilaalinta iyo difaaca dadka dhulka iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiiradu waxa uu si cad u xaqiijinayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay marnaba aqbali doonin in maamulka Muqdisho ee fashilmay uu kala qaybiyo shacabka Soomaaliland ama uu maamulo sharci darro ah ka samaysto gudaha Soomaaliland. waanad mahadsantihiin. waa Idris Bershiya warbaahinta qaranka ee Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Hargeysa.